بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan bilaabaynaa casharka saddexaad ee analytic geometry waa ellipse ama qabaal. labada cashar hore aan soo qaadnay mid parabola buu ahaa midna circle. haddii equation nooca kan loo qoro marka ellipse-ga la joogo macnaheedu waxa weeye ellipse-ga origin-ka ma yaal sababtoo ah qiimayaal baa la socda x t y daba mar walbana waxaa xusuusnaataa a iyo b a baa weyn. qabaalka haddii la sawiro marka ama ellipse-ga haddii la sawiro dhinac buu dheeryahay ujeedaa dhinacna wuu gaaban yahay. dhinaca u dheer yahay major axis baa la dhahaa, dhinaca u gaaban yahayna minor axis baa la dhahaa. haddii major axis-keena waa maxay wuxuu dhacaa y axis-ka ama dhidibka y. sababta uu dhinaca y-da u dhacayna waxay tahay maxaa yeelay a-da oo lambarka weyn ah baa waxa uu hoos yaalaa y-da. laakiin haddii equation-ka nooca kan loo qoro oo x iyo y wax qiimayaal aan la socon marka macnaheedu waxa weeye ellipse-geena waa maxay origin ku yaalaa oo xudunta bartamaha ku samaysmi doonaa meesha 0 ahay. waa ka hadeer bartaa ku samaysmay adiga garan kara hadeer dhinacan iyo dhinacan kee buu dheer yahay dhinaca x ta buu dheer yahay sida awgeed major axis-keena hadeer waa dhanka kan way waa xagga x ka way. sababta xagga x ka u dhacayna waxay tahay maxaa yeelay a waxay hoos taallaa hadeer x bay hoos taallaa. casharkeena aan bilaabano marka tusaalaha koowaad intaasana loo qoray waxaana loo diray curve aan sawirno ellipse-ga iyo foci inaan helno. foci wax kale ma waa focuskii oo bulraala way maxaa yeelay ellipse-geena laba focus buu leeyahay. ugu horeyn general formula-hii soo qor eeduna hadeer waxay hoos taallaa x maxaa yeelay a waxaan niri mar walba oo lambarka weyn way. centerkan raadinayna centerku fudud yahay maxaa yeelay waa origin baa la yiri maadaama origin lagu yiri 0 ku samaysan doonaa oo bartaas ah. hadeer waxaan raadinaynaa marka qiimayaasha a iyo b. a waa lambarka weyn bay la eg tahay a square gareysan waxay la eg tahay 9 square root ka saar waa positive 3 iyo negative 3. b raadi b da waa lambarka yar waa b square gareysan 4 bay la eg tahay square root ka saar waa positive 2 iyo negative 2. marka hadeer waxaan sameynaynaa qiimaha a la eg baan durkaynaa xagee loo durkayaa weeye a da xagee bay taallaa x ta hoosteeda sidaa awgeed xagga x oo midig iyo bidix ah baanu durki doonaa 3 midig u durug waa ka bartaas ku samaysmaya haddana 3 bidix u durug bartaas ku samaysmaya. b da u imo oo minor axis-kii ah b da waa maxay waa lambarka yar y bay hoos taallaa sidaa awgeed y waa kor iyo hoos weeye kor 2 u durug 2 waa tegaysaa waa labana hoos soo durug negative 2. haddii isku soo xir ellipse-geeni waa samaysmay kan dhinacan dheer qabaalku u dheeryahay ellipse-gu u dheeryahay major axis weeye kan yarna waa minor axis. hadeer marka foci baan raadinaynaa. foci wuu fudud yahay xeer buu leeyahay marka xeerka uu leeyahay waxa c square baa inta la eg ku bedbedel a waa haynaa waa 3 b na waa 2 square gare kadibna square root ka saar waa positive iyo negative 2.2. waxaan sameynaynaa marka waxa xusnaataa foci-ga mar walba wuxuu dhacaa major axis-ka yaa major axis noo anaga x saaweed marka wuxuu dhici doonaa 2.2 ka soo durug xudunta oo midig iyo bidix u durug 2.2 xagga u durug halkaas tagaysaa waa maxay halkan bidixna u durug 2 halkaas tagaysaa. mararka qaar major axis-ka dhererkiisa lagu diri karaa. major axis-ka waa maxay waa inta tan dhererkeeda weeye inta hadda aragna waa 3 iyo 3 waa 6 weeye inta tan waa a halfkana waa maxay waa a weeye sidaa marka waa 2a baa lagu helaa major axis-ka 2 hadii lagu helo a waa haystaa a waa 3 weeye 3 ku dhufa waa 6 macnaheedu waxa weeye major axis-keena dhererkiisu waa 6 weeye. minor axis-ka ku soo haray waa qiyaasi karaysaa adba waa inta dhererkeeda weeye waa 2 iyo 2 4 baa lagu 2b way noqonaysaa 2b b di ku bedelo 2 di ay haysatay 4. tusaalahan labaad kii hore muxuu kaga duwan yahay a oo lambarka weyn ah baa markan waxay hoos taallaa y-da hoosteeda intaa kaliya kaga duwan yahay. general formula soo qor a di waa taa y-da hoosteedii waan dhignay centerka origin ku yaala maadaama lagu yiri 0 buu ku samaysmi doonaa a oo square gareysan lambarka weyn bay la eg tahay mar walba 16 ka saar waa positive iyo negative 4. b da lambarka yar bay la eg tahay b square gareysan ka saar waa positive iyo negative 3. hadeer marka a oo lambarka weyn ah y bay hoos taallaa sabab marka waa maxay a da qiimaheeda waa xagga y-da waan u durkaynaa kor iyo hoos kor 4 u durug hoosna waa maxay 4 u durug b da waa lambarka yar waxayna hoos taallaa waa maxay x ta hoosteeda sidaa awgeed x xaggeeda u durug waa midig iyo bidix 3 xagga usoo durug halkana waa maxay 3 u durug negative 3 bay tegaysaa isku soo xir ellipse-gii waa u samaysmay kana major axis ah kana waa maxay x ta waa minor axis-ka weeye. foci-ga waa soo qaadana xeerka lagu helo a iyo b qiimayaashoodii waa haystaa a waa 4 b na waa 3 ku bedbedel kadibna waa maxay ka saar waa 2.6 baa ugu dhow. sabab marka foci-ga waxaan niri major axis-ku ku samaysmaa y-da xaggeeda ku samaysmi doonaa 2.6 xagee u dhaxaysaa 2 iyo 3 da way u dhaxaysaa oo y-da ah 2.3 iyadoo positive 2.6 iyo 2.6 negative ah.
qaybta labaad baan u gudbinaa oo ah ellipsiga marka aan originka online hore waxaan u niri marka ellipsiga marka aan originka online x iyo y qiimayaal baa la socda general formula soo qor eedi waxaan hoos dhignay y-da centerkan raadinayna marka centerka waa maxay qiimayaashiisa x iyo y-da waa kuwan qiimaha x waa positive 3 qiimaha y-na waa maxay waa negative 2 way sababtoo ah h iyo k waxa la socda negative yaa la socda negative yaas ku dhacaya marka waa x iyo y calaamadaha u kala bedel labada lambar marka centerka waa meesha x ay 3 ka tahay y-na waa maxay ay ka tahay negative 2 waa barta waxaan raadinaa marka a oo square garaysan waxa la eg tahay lambarka weyn oo 25 ah ka saar root-ka b na waxa la eg tahay lambarka yar waa maxay 16 ah ka saar waa positive iyo negative 4 way marka waxaan sameynaa a waa lambarka weyn waxaana hoos taala y si awgeed marka y xageeda loo durki doonaa kor iyo hoos 5 kor u durug haddaan negative 2 taagnaa oo aan 5 kor u durko positive 3 baan tagayaa 5 hoos soo durug waa maxay waxa tagaysaa negative 7 baa imaanaysaa b-da qiimaheeda u tag b-da waa lambarka yar x bay hoos taala xagga x u durug oo midig bidix xudunta ka durug waxa ka durkaysaa 4 xudunta tan haddaan taagnaa 3 waa xagga kaga beegnahay durug xagee tagayaa 7 4 baa lagu daray xaggana waa maxay durug waxa tagaysaa negative 1 baa tagaysaa maxaa yeelay waa 3-da tan ilaa negative 1 waa 4 way isku soo xir qabaalkaaga aan samaysmo bokayga xeerkiisa hore aan soo baranay c square baa inta la eg ee qiimaheedu waa haysataa waa 5 kana waa maxay b-dana waa 4 ku bedelo kala jar kadibna waxa ka saartaa square root-ka oo positive iyo negative 3 baa noqonaysaa waxaan soo niri focus-ga wuxuu dhacaa major axis-ka buu dhacaa sabab marka major axis waxa inoo ah anaga hadeer y-da inoo ah sabab marka xudunta tan waxa ka durugtaa c qiimaheeda in la eg oo kor iyo hoos xudunta tan kor 3 u durug korna hoosna 3 u durug halkan waxaan kaga beegnahay negative 2 haddaan kor u durko waa maxay 1 baan tagayaa haddaan xudunta 3 hoos uga soo durkana negative 5 baan imaanayaa su'aalaha labaad sidoo kale originka ma yaal laakiin muxuu kaga duwan yahay a-dii baa waxay hoos taallaa x general formula soo qor a-da markan x baan hoos dhignay centerka raadi centerka qiimayaashiisa waa x ta qiimaheedu waa kan qiimihii y-dana waa kan calaamadii inuu kala bedel kan waa h kana waa maxay waa q k weeye calaamadii waa isbedelaya kaliya centerkan wuxuu dhacayaa marka ama ellipsiga centerkiisa wuxuu dhici doonaa meesha x ay ka tahay 1 y-na ay ka tahay negative 1 oo bartaas ah waxaan raadinaa marka a mar walba lambarka weyn bay la egtahay square garaysan ka saar square root-ka b-dan qiimaha yar bay la egtahay 4 ka saar waa positive iyo negative 2 maadaama ay x hoos taal sabab marka midig iyo bidix ma durki doonaa waxaa sameynaysaa xudunta 3 ka soo durug 4 baa imaanaysaa bidix u durug haddana 3 waa maxay negative 2 baa tagaysaa b qiimaheedu wuxuu hoos yaalaa y kor u durug marka iyo hoos kor laba u durug waxay noqonaysaa waa maxay 1 baa tagaysaa maxaa yeelay negative 1 baa taagnayd negative 1 hoos uga soo durug labo waa maxay waxa tagaysaa negative 3 isku soo xir ellipsiga waa samaysnay focus-ga waa soo qaadanay c square baa inta la eg waa sida Pythagoras theorem oo kale way kaliya a-da waxay ka weyn tahay b iyo c ba a baa ka wada weyn ku bedela marka a waa ku 3 b na waa maxay waa ku 2 bay ahayd square root-ka ka saar 2.2 waa ugu dhow waa positive iyo negative focus-ga waxaan niri major axis ku dhaca major axis-kana waa x xudunta tan marka midig waxa ka soo durugtaa 2.2 waxay imaanaysaa barta 2.2 ka durug bartaas tagaysaa mararka qaar coordinate-ka focus-ga lagu diri karaa focus-ga coordinate-kiisa macnaheedu waa maxay halka bartaas iyo barta tan coordinate-keeda maxay noqonayaan marka a-da qiimaheeda uu hoos dhacayo x uu hoos yaal marka waxa la sameeyaa k-da sideeda loo soo qaataa h-tana waa maxay waxa lagu daraa c qiimaheeda oo root 5 anaga inoo ah marna ku dar oo waxa helaysaa markuu positive ka yahay marna ka jar waxa helaysaa goorta waa maxay coordinate-kaagu negative yahay laakiin haddii a-da qiimaheeda uu hoos dhici lahaa y-da a-da haddii ay y hoos oolaan lahayd marka waxaan samayn lahayn h qiimaheedaan soo qaadan lahayn qiimaha c-na waxaa lagu dari lahaa marka ama laga jari lahaa k-da